Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada channelka Calas 24 Post waxaa nooga baratay wararkii ugu dambeeyay caalamka ee gaar ahaan kuwa xiisada ka taagan bariga Ukraine taasoo u dhaxaysa midowda Yurub NATO iyo Ruushka dhinaca ah waxay ogeedeen oo nala socoteen maalmaha kan ilaa 2 weeks ilaa 3 weeks ilaa bishan iyo tii horeba in xaalad aad u kacsaneyd bishii January in Ruushka uu soo dhoweeyay xuduud la leeyahay dhinaca Ukraine dhinaca Crimea inuu ciidamo aad u fara badan oo gaaraya lagu qiyaasay ilaa 100,000 uu soo dhoweeyay reer galbeedkuna markiiba saxaafadoodu waxay sheegeen inuu Ruushku doonayo inuu qabsado NATO taa dabadeed waxay dhaheen waxaan ugu bedelin doonaa cunaqabateyn oo abid oo ka soo waaqsan waayo hanjabaadahaas waxaa kaloo dheeraa inay dhaheen Swift ayaan ka saarnaa xagga lacagaha la isugu diro bangiyada adduunka taasoo dhibaato xun oo dhaqaale u keeni lahayd dalka Ruushka hase yeeshee madaxweynaha Ruushka oo aad u degan oo had iyo jeer ku degdegin dagaalada kana fiirsada xilligu dagaalka qaadayo cidna saa u sheegin xilligu dagaalku qaadayo asna ah nin khabiir oo sirdoon ahaan jiray ayaa reer galbeedka ku jahwareereen waxaad ogtiin gobolka Crimea inuu ka mid ahaa markiisa hore Ukraine reer galbeedkuna waxay muddo ku andacoonayeen waa in Ruushku gobolka ku wareejiyo Ukraine asaguna wuxuu leeyahay dadka halkaas degan waa Russian ayaga ayaana u codeeyay inay Ruushka ka mid noqdaan wuxuuna qabsaday Ukraine gobolkaas ka tirsan ee Crimea la yiraahdo 2014 asagoo indhi ku daadan ayuu habeenimo ciidamadiisa baarashuudka ay ku degeen sidaa daraadeed wax iska caabina kalama kulmin gobolka markuu qabsanaya Ruushku daawadayaal meel walba joogtaan waxaan nagala socotaan Calas 24 Post hadda jeer waxaan soo gudbinaa warar hufan oo ku saleysan xaqiiqda ah waana ku mahadsantihiin daawadayaal daawashada iyo la socodka nala socotaan channelkayga sida ogtihiin walaalayaal xiisad dagaal ayaa maalmaha kan ay hurinayeen reer galbeedku laakiin Ruushka lama maqal waxaan qabsanayaa Ukraine wuxuu sheegay in dowladdu uu sameeyay wuxuu kaloo sheegay in reer galbeedku dandaas ayagu ay wadaan oo ciidamada soo dhoobeen xuduudaha uu la leeyahay wadamadaas midowga Yurub wuxuuna sheegay in ciidamadaas laga qaadan waayo NATO ay ka qaadan waayaan xuduudaha sida Baltica sida xuduudda Ukraine sida Poland sida Romania sida Belarus xuduudda uu la leeyahay midowga Yurub wuxuu sheegay Ruushku inuu tallaabo qaadan doono hase yeeshee Ruushku oo aan la ogeyn inuu dagaal qaadayo ayaa madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa la kulmay maalinkii shalay galab ahayd madaxweynaha Ruushka labadooda ciidamo dhaxaynin waxaana ka wada hadleen in xiisada la dejiyo madaxweynaha Ruushkuna aad ayuu uga aqbalay wuxuu yidhi andisu Macron u imaan xaaladdu sidaan ma ahaateen Macron wuxuu sheegay waxaan ka doonaynaa madaxweynaha Ruushka oo aan kugu yimid in xaaladda dejisid madaxweynaha Ruushkuna uu ka aqbalay arrintaas wuxuuna cadeeyay inuusan dagaal qaadan doonin laakiinse reer galbeedka looga baahan yahay in arrinta Crimea aysan marna ka hadlin Ukraine aan lagu darin karin NATO haddii Ukraine NATO lagu daro ama midowga Yurub taas waxaa la mid tahay in la dandaansanay aniga Faransiiska waxaan ka doonaynaa inaan ballan qaado arrintaas anigu hadda ma doonayo inaan Ukraine qabsado wadahadalkii meel fiican u maraya ayaa Macron maanta tolo wuxuu ka soo degay caasimadda Kiev ee dalka Ukraine madaxweynaha Ruushka ayaa markuu dhamaaday shirkii ololaha madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu aad uga asagoo careysan saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi NATO ma waxaad doonaysaan inaad Ukraine dabada ka soo riixdaan ma waxaad doonaysaan dagaal inaad Ruushka la gashaan ma waxaad doonaysaan inaad Crimea aad tirahdaan waa Ukraine bay ka mid tahay Faransiisku adna masaasaad doonaysaa Crimea iska daa oo waxa iskale Ukraine taas ma dhacayso Crimea waxay ka mid tahay Ruushka mana yeelana taas mana dhici doonto mana bixin doono weligeena ma aqbalin doono taas Crimea hadda xog qaadan ka dhan kale ku qaatay ayuu yiri hadda dagaal doonaysaan soo cadeey ayuu yiri oo hadda dagaal u tihiin asagoo aad u careysan ayuu markii Macron ay kala tageen ka bacdi shir jiraado saxaafadda oo hortooda uu ka sheegay in uusan doonin dagaal laakiin reer galbeedku ay doonayaan dagaal wuxuu yiri waxay doonayaan Crimea inay qaataan oo ku qoslay wuxuu yiri waa doqomo Crimea wuxuu yiri waa Ruushka ka mid ah hatta Ukraine baa Ruushka ka mid u yiri marka wuxuu yiri anaga ma doonayna Crimea inaan had maanta aan Faransiiska ku siino ama Ukraine ku darno ama NATO aan ku darno taasna caqli gal maaha mana yeelin doono mana dhici doonto yiri Crimea waxa ka mid tahay jamhuuriyadda Ruushka hase yeeshee walaalayaal sida nala socotaan madaxweynaha Ruushka ayaa cadeeyay galabtay inuusan dagaal qaadan doonin dhanka kale madaxweynaha dowladda Mareykanka iyo Chancellor-ka ninka la yiraahdo Olaf dalka Jarmalka ayaa shir jiraad ku qabtay xalay toole aqalka cad madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in haddii taaka ka mid ah midowga Yurub uu Ruushku soo galo oo soo dhaafo Ukraine in ay jawaab ka bixin doonaan oo difaacan doonaan midowga Yurub jawaabtaas waxay noqon doontaa waxa dhadhamin doona Ruushka madaxweynaha Mareykanka ayaa jawaabtaas wuxuu ku hor cadeeyay saxaafadda horteeda asagoo hortaagan wariyaasha
su'aal la weydiiyey waxay ahayd see ayaad macnaha uga hortegi kardhaa wuxuu yidhi annaga noo taallaa taas sidaan uga hortagno ninka nima taalo uu yidhi wariyaalow jansalarka isna jarmalka ayaa yidhi waxaan taageersanahay maraykanka waxaan taageersanahay midowda yurub iyo neto waan difaacan doonaa xuquuqdayada haddii taaka ka mid ah ay soo gudbaan ruushka